kani waa musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo ka mid ah murashaxiinta u hanqaltaagaya xilka madaxweynaha Soomaaliya waana shakhsigii ku guuleystay in la furo dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale waa shakhsigii ku guuleystay inuu daaha korogo musuqmaasuqa midowga Yurub ay ku hayeen xerada xalane ee lagu dhibaateyn jiray ummadda Soomaaliyeed musharax madaxweyne Abshir Feero waxa uu noqday musharaxii saddexaad ee dunida abid soo mara kaasoo leeyso doorashada ku soo gala buugu isagu qoray sidoo kale waa musharaxii ugu horeeyay ee tiigsada darajadaasi wadamada dhaca Geeska Afrika haddaba maxaa lagu xasuustaa shaqooyinkiisa gaarka ah musharax Feero musharax Abshir Aadan Feero waa ganacsade iyo hal-abuuro guuleystay waana aasaasigii shirkadda Forage Group waxa uu leeyahay khibrad 32 sano ah oo la xiriirta shaqada ammaanka isagoo soo qabtay booso sarsare oo shaqadaas la xiriirta waa xeelleere dhanka ammaanka iyo waliba dhaqaalaha ku takhasusay haddii aan dib u milicsano waayihiisa siyaasadda musharax madaxweyne mudane Abshir Aadan Feero muddo ku dhow 20 sano ayuu daaha gadaashiisa ka maamuli jiray siyaasadda dalka isagoona qayb weyn ka qaatay horumarka siyaasadda arrimaha dibadda haddaba waa kuma musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero Abshir Aadan Feero waa muwaadin Soomaaliyeed buug uu qoray ayuu ku cadeeyay inuu dhashay sanadka markuu ahaa 1968 iyadoo warqadiisa dhalashada lagu qoray dalka Talyaaniga inkastoo markaas ay Soomaaliya ka hoos baxday maamulkii gumeysiga ahaa ee dawladda Talyaaniga waxa uu ku dhashay degmada Waaberi gobolka Banaadir halkaas ayuuna ka bilaabay barashada Quraanka Kariimka isagoo 4 jir ah waxaan dhashay anigoo Soomaali ah waxaana noqday muwaadin Faransiis ah markii aan aabahay ugu tagay dalka Faransiiska kadibna waxaan noqday muwaadin British ah kolkii aan u wareegay hoygii hooyaday oo ahaa London bishii Luulyo 1989 xilligaas oo ay howlgab noqotay ayuu ku qoray buugiisa waxaanu intaasi sii raaciyay balse waxaa maanka iyo waliba niyadda harsada Soomaaliya waxaana maanta diyaar u ahay inaan wax walba u huro dib u curashada qarannimada Soomaaliya kadib dugsigiisa Quraanka mudane Feero waxa uu aaday dalka Faransiiska halkaas oo aabihii ku noolaa sidaas daraadeed waxauna baadi goob u galay nidaamka ka duwan kan Faransiiska ilaa ugu dambeyn uu bilaabay barashada xirfadda makaanikada oo isugu jirtay 3 maalmood oo duruus ah iyo 2 maalmood oo uu garaashka ka shaqeyn jiray kadibna waxa ay hooyadii oo ugu timid Faransiiska ay u waday Imaaraadka iyo Soomaaliya halkaas uu wax barasho ka duwan xirfadiisa makaanikada ku bartay waxa uu sidoo kale wax ku soo bartay dalalka Soomaaliya Imaaraadka iyo Faransiiska kadib madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha haatan dalka Faransiiska Emmanuel Macron musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero waa musharaxii saddexaad ee u tartama xilka madaxweynaha kaasoo leeyso doorashada ku soo gala buug uu isagu qoray iyo waliba musharaxii ugu horeeyay Afrika ah ee sidaasi sameeya shakhsiyadda lagu garan karo muwaadinka dhabta ah waa mid soo bandhiga dhagaraha ay maleegayaan dawladaha dariska la ah dalkeena waana shakhsigii banaanka keenay kiiska dacwadda badda ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya sidoo kalena waa shakhsigii midowga Yurub kula xisaabtamay musuqmaasuqii ay Soomaaliya ka wadeen mudane Abshir Aadan Feero waa shakhsigii ugu horeeyay ee Bill Gates keena dalka gaar ahaan gobolada waqooyi ee loo yaqaan Somaliland magaalada Hargeysa daawade ma u qalmaa Abshir Aadan Feero xilka ugu sareeya dalka inuu hogaamiyo يا اسكجر واكو سلامة ود عبد الله دنتادا كورن سؤال تاسو اخري سوغي ساس هدينا وجواب ارمقل اديق بيا كاخيغا من ادو جوابي عيد سنه كان كورما gabdhaha nasiibkooda wiilasha waa ugu jirtaa ee baago shirkadda hal door fashion sanadkan wiilasha labiskooda lagu magaaro oo maxay u hayaan dharka Asad Collection Fashion hay asad libax ma ho mugay gashtaan dharka Asad Fashion igaartu libax iyo kaaba u ekaahaya oo maxaad ku tiri ya adigu mugaad libax aragta saadnaqahe naxdin xabad intu ii istaagay ha kula jirto dharka Asad Fashion wiilkii loo galiyana qurux darteer xaada xabad ku roogsaaysa hayabal inabe waliba kalar kasta ayaad ka helaysaa wazaas waana qurux iyo steelka ugu dambeeyay abaaballa mugow dhasho ilaa oo ka qaangaarana waa loo helaa macnaha waa 6 bilood jirkiisa ilaa 15 sano jirkiisa oo xagee laga helaa aan wiilasha u doontay goob kasto dhar lagu gado ama hal door fashion oo xafiiskooda ku yaalo bakaaraha suuqii hore ee Cali Dheere xaruntii dahabshiil ama kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda